بسم الله الرحمن الرحيم جعل مدحوينه جعليال waxaan idinku soo dhaweynayaa wadankeena labaad waxay noo tahay sharaf booqashada aad nagu timaadeen waxaan rajaynayaa wadada aad joogtaan inaad ku joogtaan caafimaad iyo farxad inaad ku joogtaan marka xigta isu sheegi mayno waa iska warqabnaa adinkana waan ognahay annagana waan ogtiin ilaa sabaankii halgankii go'aanimadoonka ayaad Soomaaliya joogteen waad ka warqabtaan badi waa u timaadaan waxay la tahay ma hayno daara dheer alaaba fooq iyo ma haynano laakiin waxaan niyad walaalnimo oo idinku soo dhaweynaa oo lillaah oo waxba lagu doonayn booqashadaanu waxay sii xoojinaysaa waajibaadkii ina saaraa dhamaanteen soo dhaweynta iyo wax wada qabsiga gacaltooyo ee laga maarmaan ahayd inaanu wadno shir baan la qaatay dawladda Djibouti Xaaji Xasan oo kamid yahay bahdoon kamid yahay waxaan u cadeeyay anagu mabdi'iyan ee noo muuqato laba dal oo walaala ah oo diris haddana ah waxu dhaxaya aan jirin in loo qaato ruqsad dalku gal anagu u goyn mayna adinku aad rabtaan u goosto xaqdi iyo canaadna uga madan leeyna waraadan kale ma jiraanin reer Djibouti mardu passport Djibouti ana wato hayimaad dalka markuu rabana ka baxo markuu rabana hayimaad saas baan ku doonay hadda sidaas bay iga tahay wixii kale oo naashnaasha waxay la tahay wasiirada arrimaha dibadda iyo farsamayaqoonkooda yaa soo dhameystiri doona bir suuxi ka gadaalna iyagaan soo gaarsiin kara aad iyo aad baad u mahadsantiin waxaan idin rajaynayaa caafimaad iyo nasasho wanaagsan mahadsanidin بسم الله الرحمن الرحيم جال محمد سياد بري هدان ودن واي قبسن لها جال إما كبو مقليا هدان جال ما هاني حقيقة كلمة قلوعا waxay ka dhigan tahay walaal layaal mid aniga qarqariga iga ma jirto gudida ila socotaana qarqariga kaga ma jirto inay dhulka kani ku yihiin dhul qariiba oo dad walaalhooda u yimaadeen tan iyo xisaabaadka horeyna soo maray 1 2 3 4 intaba waxaanu sheegnay waa mahad wixii la qabtay ee Soomaaliya qabatay mara qarin karayno ma aanu ogolin sida uu Maxamed Siyaad Barre yiri inay xuduudda kala oodanto dadka in la dhibo ma ogolin gudida ila socotay indhooda waa ku arkayaan mahad baan sheeganaynaa walaalnimaan sheeganaynaa inta aynu ku dhaafna hadal jeedintii wadajirka ahayd madaxweynihii hore ee dalkeena Maxamed Siyaad Barre iyo madaxweynihii ugu horeeyay ee dalkaasi aynu walaalahanahay ee Djibouti Xasan Guuleed Abtidoon waxayna khudbadaani si toos ah raadiyo Muqdisho ugu baxday 24kii bishii Febraayo 1987 xilligaasi oo madaxweynaha dalka aynu walaalahanahay Djibouti booqasho rasmi ah oo dalka ku soo gaaray